السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacayga waa Dr. Abdilatiif Mohamed Hussein oo ku magac dheer Jawhari. maanta waxaan rabaa inaan idiin soo jeediyo oo aan idiin faa'iideeyo cudur ka mid ah cudurrada ugu caansan dalkeena hooyo. waa cudurka loo yaqaano malaariyada oo ka mid ah cudurrada faafa. waxaan idiin rajaynayaa insha Allah inaad ka faa'iideysan doontaan. ka faa'iideyso wacan. malaria waa caabuq ka mid ah caabuqyada ku dhaca bini'aadanka waxaana sababa isiro yar oo ka mid ah isirada plasmodiumka, kuwaasi oo ah dirisku noole ka kooban hal unug, waxaana gudbiya ama faafiya kaneecada nooceeda dhediga ee loo yaqaano female anopheles mosquito. Plasmodiumka markii uu galo marinka dhiigga waxa uu saameeyaa ama uu burburiyaa unugyada beerka iyo unugyada cascas ee ku jira dhiigga, waxa uuna sababaa calaamado kala duwan, xitaa waxa uu keenaa dhimasho qofka oo u dhiman kara. malaria waa cudur ka mid ah cudurrada dhibaatooyin ba'an ku haya dunidani aan ku noolnahay, waxa ayna saameysaa malaayiin dad oo dunidani ku nool. dadka ugu badan oo ay malaariyada saameyso waxaa ka mid ah caruurta da-dooda ay ka yar tahay 5 sano, dumarka uurka leh, bukaanada la ildaran xanuunada kale sida AIDS-ka, iyo dadka safareyda ah oo aysan malaria horey ugu dhicin haddana u safrayo meel malaria ay ku badan tahay. malaria waxa ay ku badan tahay wadamada la isku yiraahdo tropical iyo subtropical countries oo ah wadamada kuleelada iyo kuwa ka agdhow, weliba qaasatan kuwa u dhow dhulbaraha oo ah equatorka. wadamada ugu badan ee malaria ay ku dhacdo waxaa ka mid ah Latin America, Sub-Saharan Africa, South Asia iyo South East Asia. waxaa jiro boqolaalo isiro oo ay ka kooban tahay plasmodiumka. 5 ka mid ah isiradaasi ayaa waxay cudurka malaria ku sababaan bini'aadanka. isiradaasi waxaa ka mid ah Plasmodium falciparum, Plasmodium vivacis, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale iyo Plasmodium knowlesi. haddaan ka hadalno Plasmodium vivacis waxay isticmaashaa specific erythrocyte surface receptor oo loo yaqaano Duffy antigen, kaas oo u suurageliyo inay dhex gasho unuga gudihiisa. noolayaasha qaar oo la ildaran xanuunka loo yaqaano sickle cell anemia iyaga ma lahaan antigenka loo yaqaano Duffy antigen, sidaasi darteed Plasmodium vivacis awood uma lahan inay gasho unuga gudihiisa. haddii aan si kale u dhigno, noolayaasha la ildaran xanuunka loo yaqaano sickle cell anemia iyaga genetically waxay leeyihiin awood ay isaga difaacaan Plasmodium vivacis. waxaan ka hadlaynaa insha Allah life cycle of malaria oo ah qaabka qofka waxa malaria sababaya, qaabka uu u saameeyo waxaasi oo ah Plasmodium, laga soo bilaabo markii kaneecada ay ka soo qaado Plasmodiumka qof cudurka la dhiban oo cudurka malaria la dhiban, iyo markii u gudbiso qof caafimaad qaba oo aan cudurkii qabin. waxaan malaria sababayo ay u gudbinayso qofkaasi caafimaadka qaba markii jirkiisa ay ku shubto Plasmodium jirkiisa waxa ay ka qabanayso ayaan ka hadlaynaa. habkaasna waxaa loo yaqaanaa life cycle oo ah meertanoleedka ay marto Plasmodium laga soo bilaabo kaneecada ilaa iyo markii qofka jirkiisa ay gasho. malaria sida waxay bilaabataa markii kaneeco wada waxa malaria sababayay oo ah Plasmodium oo ay kaneecadaasi ugaarsato dhiig xilliyada maqribadii iyo habeenadii. Plasmodiumkaasi ku jira kaneecada gudaheeda, weliba qaasatan qanjirada cadhuufta ee kaneecada. Plasmodiumkaasi wuxuu ku jiraa marxalad loo yaqaano sporozoid. kadib kaneecadii waxay ugaarsanaysaa dhiig iyadoo qofka ku suraysa micideeda dheer oo sida cirbado kale u eg oo loo yaqaano proboscis. markii micidaasi qofka ay ku surato ilaa iyo xidid ay ka hesho, kadib qofkii waxay ka jiqaysaa dhiigii. markii dhiigga ay ka jiqdo waxa ay ku shubaysaa sporozoidkii ku jiray qanjirada candhuufta oo ay kaneecada ay leedahay. kadib sporozoidkii waxa ay ku shubaysaa marinka dhiigga. sporozoidka markii dhiigga qofka oo ay galaan waxay gaarayaan beerka. markii beerka ay tagaan way tarmahiin, waxay tarmahiin weliba taran jinsi laba oo loo yaqaano schizogony oo sexual reproduction. taran guud ahaan waxaa loo qaybiyaa 2: taran jinsi laha oo loo yaqaano sexual reproduction iyo taran jinsi laba ah oo loo yaqaano asexual reproduction.
sporozoidka markii beerka ay yimaadaan taranka nooca ay tarmaan waxaa loo yaqaano waa schizogony, waana taran jinsi laaba oo asexual reproduction ah. sporozoidka markii ay ka buuxsamaan beerka isbuuc ilaa iyo 2 isbuuc kadib Plasmodium falciparum iyo Plasmodium malaria iyo Plasmodium knowlesi waxa ay u tarmahiin taran jinsi laaba oo asexual ah. kadib sporozoidki waxay kusoo gudbaysaa marxaladaasi, waxay isku bedelaysaa merozoid, halka unugyada beerka qaar fara badan oo kamid ahne ay dhiman doonaan oo dhaawac fara badan loo geysan doona. Plasmodium vivacis iyo Plasmodium ovale iyaga waxay beerka joogi karaan muddo bilal ilaa iyo sanado, waxaana loo yaqaanaa markaasi hypnozoites. sababtu waxay tahay iyaga ma qaybsamaan oo ma bataan, calaamadana lama yimaadaan xilligaasi oo ay beerka ay dormant ku yihiin oo ay ku qarsan yihiin. wejigan oo ka dhacay beerkan waxaa loo yaqaanaa exoerythrocytic phase ayaa loo yaqaanaa, oo ah wuxuu ka dhacayaa unugyada cascas banaankooda ayuu ka dhacayaa, oo unugyada cascas gudihiisa kama dhacayo. guud ahaana wax calaamado lama yimaado wejigani. haddaan fisirno erythrocytic phase waxaa laga wadaa exo means waxa waaye waa outside, erythrocyticna waxa waaye waa red blood cells unugyadii cascasay, phase-na waa wejigiisa. marka wejigan wuxuu ka dhacayaa unugyada cascas banaankooda ayuu ka dhacayaa. kadib merozoidkii waxaa laga soo dayi doonaa beerkii, waxaana lagu soo daynayaa dhiigga ayaa lagu soo shubayaa, waxayna ku dhagahiin oogada sare ee unugyada cascas ayay ku dhagahiin, kadibna waxay dhaawici doonaan unugyada cascas ee dhiigga ku jira. Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum iyaga waxa ay weeraraan dhammaan unugyada cascas oo dhan ayay weeraraan, kuwooda immature-ka ah ama young reticulocytes oo RBC-da yaryar oo hadda la soo saaray, iyo kuwa qaangaaray oo jirka uu iska saari rabo, oo jirka waxyaabo kale ayuu ka sameeyaa RBC-ga markuu duqobo, sababtoo RBC-ga ilaa iyo wuxuu nooladaa 120 maalin. 120 maalin kadib RBC-gi jirka uu iska saaro waxyaabo kale ayuu ka sameeyaa. marka Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum waxa ay weeraraan dhammaan unugyadaas oo dhan, kuwooda immature-ka iyo kuwooda oldiga intaba waa ay weeraraan. Plasmodium vivacis waxa ay weerartaa unugyada cascas kuwooda yaryar oo loo yaqaano reticulocytes ama immature reticulocytes ay weerartaa, halka Plasmodium malaria iyo Plasmodium knowlesi waxa ay weeraraan unugyada cascas kuwooda duqoobay oo older RBC-ga ay weeraraan. markii merozoidka uu dhex galo unugyada cascas, merozoidka waxa uu maraa taran jinsi laaba oo loo yaqaano asexual reproduction iyo isbedelo taxana ayuu maraa. wejigana waxaa loo yaqaanaa erythrocytic phase ayaa loo yaqaanaa, taasoo micnaheedu ay tahay wejigani wuxuu ka dhex dhacayaa unuga cas gudihiisa, waxa uuna qaataa muddo 2 maalin ilaa iyo 3 maalin. wejigani waxa uu maraa 3 marxalad oo kala duwan. marxaladda ugu horeysa waxa waaye merozoidka wuxuu isku bedelayaa ama uu noqonayaa shay wax wareegsan oo ringi camal ah, waxaana loo yaqaanaa markaasi early trophozoid oo laga dhex arki karayo unuga cas gudihiisa. marxaladda labaad waxa waaye trophozoidkii wuu korayaa, markii uu koro wuxuu noqonayaa late trophozoid. marxaladda saddexaadna waxa waaye merozoidkii wuu korayaa, wuxuuna burburinayaa hemoglobintii ku jirtay unugyada cascas, wuxuuna ka tagayaa isku dhis loo yaqaano hemozoin, kaas oo markii microscope lagu fiiriyo u muuqanayo sida waxyaabo gabalo yaryar oo colorka kafeega leh oo aad ka dhex arki kartid ama ka dhex muuqanayo unuga cas gudihiisa. waxaana loo yaqaanaa markaani boroskan waxaa loo yaqaanaa schizonti ayaa loo yaqaanaa. marxaladani markaasi waxaa loo yaqaanaa schizonti ayaa loo yaqaanaa. kadib waxaa raaci doona weji kale loo yaqaano replicative phase, kaas oo merozoidka wuxuu mari doonaa qaybsanaan, uu qaybsami doonaa oo noocyada kala duwan unuga u qaybsamo. nooc kamid ah ee loo yaqaano mitosis ayuu mari doonaa, wuu badan doonaa, wuxuuna ku dhex qaybsami doonaa unuga cas gudihiisa. markii uu bato oo unuga cas uu ka buuxsamo, unugii wuu qarxi doonaa. merozoidkan waxaa lagu sii dayi doonaa dhiiggii ayaa lagu sii dhex dayi doonaa. merozoidska qaar ka mid ah
ayaa waxa ay noqon doonaan ama ay mari doonaan isku dhis loo yaqaano gametogony, kaas oo qaybsami doono wuxuuna na sii doona wax loo yaqaano gametocytes. waxaana caan ku ah habkani Plasmodium falciparum ayaa badanaa noo muujisa. Gametocyteskan waxay u jiraan male iyo female oo ah lab iyo dhidig ay u jiraan. Gametocyteska waxay baaqi kusii ahaan doonaan unugyada cascas gudahooda kadib qofkani runtii oo life cycle-kan gudihiisa ka dhacayo weliba ilaa iyo heerkan gametocytes marayo. haddii kaneeco oo ay dhiig ka jiqdo oo ay ka ugaarsato, kaneecadaasi waxay la bixaysaa gametocyteska ay la bixaysaa oo male iyo female gametocyteski. kadib gametocyteska wuxuu tagayaa habdhiska dheefshiidka ee kaneecada ayuu tagayaa. markii habdhiska dheefshiidka kaneecada uu tago, gametocytekii waxa uu korayaa, waa ay weynaanayihiin, kadib way isku dhadhagayihiin. markii isku dhagaan gametocyteska oo ay koraan waxa ay noqonayihiin zygote, oo sababta waxay tahay gametocyteska waxay ka kooban yihiin male iyo female gamete ayay ka kooban yihiin. waxaan dhahnay gametocyteska waxay ka kooban yihiin male iyo female gamete ayay ka kooban yihiin. male iyo female gamete mar walba isku tagaan waxa ugu horeeya ee bacrintaasi kasoo baxa waxaa loo yaqaana zygote. so marka waxay noo sameynayihiin zygote. habkana waxaa loo yaqaana sperogony ayaa loo yaqaana, waana sexual reproduction, waana tarjinsiilaha. sababta waxay tahay waxaa isku imaanayo male gamete iyo female gamete ayaa isku imaanayo. halka schizogony oo ahay asexual reproduction markuu ka dhacayo beerka iyo unugyada cascas. kadib waxay isku sii bedelahayn ama ay sii noqon doonaan wax loo yaqaano ookinate. kadib waxay sii noqon doonaan oocyst. kadib uu qarxi doonaa, wuxuuna sii dayn doonaa kumanaan sporozoid. kadib sporozoidkii waxay aadi doonaan qanjirada candhuufta ee kaneecada. cyclekii meesha ayuu ku dhamaaday. haddaan rabno inaan kusoo celino waa haddana inaan meeshii ka bilaabnaa kaneecadii oo haddana dib ugu soo celinaa. qaybta xigta oo aan sharxayno waxaa loo yaqaanaa incubation time. af soomaali ahaana waxaan u naqaanaa xili huris. magaca labaad ee incubation time loo yaqaanana waxa waaye waa incubation period. incubation period ama incubation time waxa waaye waa waqtiga u dhaxeeya qofkani markii infectionka ama waxa malaria waayo Plasmodium markii jirkiisa ay soo gashay iyo waqtiga calaamadaha ay kasoo baxayiin inta u dhaxaysa ayaa waxaa loo yaqaanaa incubation time ama incubation period. israda kala duwan ee malaria sawane way ku kala duwan yihiin. xili huriska Plasmodium falciparum waxay ku qaadataa maalmo yar, halka Plasmodium malariana ay ku qaadato isbuuci yar. waxaan galaynaa calaamadaha lagu garto malariada oo ah clinical features of malaria. calaamada ugu weyn ee lagu garto malariada waxa waaye waa qandho fara badan qofkii in lagu arko. calaamadaha kale malariada anagoo fiirinayn waxaan u kala saaraynaa 3 qayb oo aad muhiim u ah. qaybta ugu horeysa waxaa loo yaqaanaa cold stage. cold stage waxa waaye waa marxalada bukaanka markii uu dareemayo qabow, dhaxan iyo jirays. qaybta xigta waxaa loo yaqaanaa hot stage. hot stage waxa waaye waa bukaanka markii uu dareemayo kuleel fara badan. qaybta xigta waxaa loo yaqaanaa sweating stage. sweating stage waxa waaye waa markii bukaanka uu dhididayo. calaamadaha kale ugu muhiimsan ee lagu garan karo malariada waxaa kamid ah qandho aan hore usoo sheegnay, laakiin qandhada waxay ka badan tahay 37.5 degree centigrade. waxaa kaloo bukaanka lagu arki karaa inuu lumo appetite-kiisa, inuu lumo matag yar, labo in lagu arko, iyo shuban in lagu arko, in bukaankii inuu tabar dhigo, qofkii in lagu arko tabar dhig, madax xanuun iyo xanuun lagu arko murqaha iyo isgoysyada. waxaa kaloo lagu arki karaa anemia yar. anemiadaasna waxaa lagu gartaa inay casaadaan calacalaha iyo xuubka soo dahareeya isha qaybteeda hoose. waxaa kaloo lagu garan karaa malariada qofka in lagu arko fuuqbax yar. fuuqbaxaasna waxaa lagu gartaa in qofka ay qalalaan afka iyo carabka inuu qalalo iyo indhihii inay god galaan. haddii dadka waaweyn lagu arko indhihii oo god galo waxay calaamad u tahay in uu jiro fuuqbax daran. waxaan fiirinaynaa qaybtan xigta waxa waaye waa diagnosis of malaria oo ah sida malaria loo baaro. markaan malaria baarayna waxaan fiirinaynaa 2 qayb oo aad muhiim u ah oo kala ah thick blood smear iyo thin blood smear. thick blood smear waxaa la dhahaa markii dhiigga aan saarno dhalada wax lagu baarayo oo loo yaqaano slide. dhiiggaasi aan ka dhigno mid tiq ah. markaan ka dhigno dhiiggaasi waxaa loo yaqaanaa thick blood smear.
laakiin markaan ku fidino dhiigga oo dhalada dhan ku wada fidino oo noqdo dhiigga mid khafiif ah waxaa loo yaqaanaa thin blood smear. So marka dhiigga markuu tiq yahay waxaa loo yaqaanaa thick blood smear, markii oo khafiif uu yahay oo aan dhalada dhan ku fidinino oo aan khafiif ka dhigino waxaa loo yaqaanaa thin blood smear ayaa loo yaqaanaa. mid walba faa'iido ayuu leeyahay. thick blood smear wuxuu inoo sheegaa parasiteska ama derisku noolaha oo malaria sababayay kaas oo ka buuxa unugyada cascas, halka thin blood smearna wuxuu toos inoogu caddeeyaa isirka plasmodiumka. muhiimada kale diagnosis inuu leeyahay waxa waaye inaan ogaano percentage-ka unugyada cascas la saameeyay, inta percentage unugyada cascas oo ay saameeyeen plasmodiumka, idan inaan ogaano percentage-ka haddii uu ka bato 5%, parasite-ka ku jira dhiigga ama derisku noolaha dhiigga ku jira haddii 5% ay ka bataan, taasi waxay ina tusaysaa natiijada kasoo bixaysa in ay xun tahay. waxyaaba kale aan fiirin waxaa kamid ah platelet count wax loo yaqaano oo ah unugyada qaabilsan xinjirowda dhiigga iyagana inay yaraadaan oo hoos u dhacaan, waxaan loo yaqaana thrombocytopenia. waxaan kaloo fiirinaya enzymeka loo yaqaano lactate dehydrogenase oo asna badan doono, kor u kici doono. elevate waxa waaye inuu bato lactate dehydrogenase enzymeka loo yaqaano, badanaana wuxuu kor u kacaa markii unugyada cascas burburintooda ay badato oo loo yaqaano hemolysis oo ah destruction of red blood cells. waxaan kaloo arkaynaa wax loo yaqaano normochromic normocytic anemia oo ah anemia waxa waaye markii unugyada cascas ay yaraadaan. normocyticna waxa waaye markii cabirkooda uu yahay normal oo mid caadi markii uu yahay. normochromicna waxa waaye markii colorkooda normal uu yahay. so marka anemiadan loo yaqaano normochromic normocytic anemia iyadana waan arkaynaa oo leh normochromic oo ah normal color caadiga ay leedahay. normocytic waxay leedahay cabir caadi ah oo unuga cabirkiisa waxa waaye cabirkii caadiga lagu yaqaani. anemiana way jirtaa oo ah unugyada cascas way yar yihiin tiro ahaan. qaybta xigtaan galayna waxa waaye treatment of malaria oo ah sida malaria loo daaweeyo. daaweynta malaria waxaan u qaybinaynaa anagoo ku saleynaynaa marxaladaha kala duwan uu marayo plasmodiumka. kow, daawada horeysa waxaa loo yaqaanaa suppressive treatment or chemoprophylaxis. suppressive treatment or chemoprophylaxis waxa ay dilaan sporozoiteska inta aysan saameynin unugyada beerka. badanana waxaa la siiyaa dadka safareyda ah oo u safray wadamo ay malaria ku badan tahay. qaybta xigta waxaa loo yaqaanaa therapeutic treatment. therapeutic treatment ujeedkan u siinin waxa waaye inaan mirazoidka kaga ciribtirno unugyada cascas oo aan mirazoidka kaga saarno unugyada cascas. sidaa ayaa loo daawada xigta waxaa loo yaqaanaa gametocidal treatment. gametocidal treatment ujeedka loo siinin waxa waaye in lagu dilo gametocyteska. faa'iidada kale ee leedahay waxa waaye gametocidal treatment in ay ka hortagto in cudurka inuu faafo iyo in derisku noolaha in uu abuurto mustaqbalka iska caawin dhanka daawada xaggeeda ah. qaybta ugu dambeysa waxaa loo yaqaanaa radical treatment. radical treatment asna ujeedkan u siinin waxa waaye in aan ku dilno hepnozoiteska ku jira liverka. badanaan waxaa caan ku sidaan hor usoo sheegnay plasmodium vivacis iyo viral infections. badanaaba kiisaska uncomplicated malaria iyaga daawo ayay ku xalismaan oo way daaweysmaan. qaybteena ugu dambeysay ee cashirkeena maanta waxa waaye prevention of malaria oo ah sida malaria looga hortago ama liskaga difaaco. inkastoo kaneecada ay gudbiso ama ay faafiso malariada, wax walba oo aad kaga hortagi kartid qaniinshada kaneecada waxay kaa difaacayiin malariada. maxaa kamid ah kow, waxaa kamid ah in aad habeenkii dharka si buuxo aad u hugsatid. 2, inaad ka gashid mara kaneecada loo yaqaano mosquito net, iyo inaad habeenkii aad guriga ku buufsatid sunta kaneecada lagu dilo oo loo yaqaano insecticide sprays. cashirkeena maanta intaas ayaan kusoo koobaynaa. waxaan rajeynayaa inaad si qurux badan ugu faa'iideysan doontaan. wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.